بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا سوم اي تي توتورياليس iyo cashiradii data structure ka iyo algorithm-ka cashirkii 23 cashirada waxay ku saabsan yihiin linked list kii ugu dambeeyay waxaan kaga soo hadalnay waa maxay linked list sidoo u yaala linked list nodes maxaa la dhahaa sidee isugu xiran yihiin iyo waxyaabahaas ayaan kaga soo hadalnay so node kana create garan doonaa oo qaybta koowaad ay ku jirto xogta aan gelin doono qaybta labaadna next oo ah tixraaca node-ka kale lagu keedin doono laakiin hadda null ay noqon doonto so waxaan samayn doonaa marka hore steps aan samayn doono ama algorithm-keena waxaan cashirka uga hadlayna waxa uu yahay class ayaan create garan doonaa oo node ah classkaas waxa uu samayn doonaa constructor method qiimo u soo gudbin doonaa constructorkaas methodkaas labadan xog oo data iyo next labadaas oo node-ka uu wadan doono ama xogtiisa ama qaybtan koowaadka oo xogta lagu keenin doono iyo qaybtan labaadka lagu keenin doono tixraaca reference-ga labadaas ayaan samayn doonaa kadibna waxaan create garan doonaa node-ka koowaad node badan create garan karta dabcan laakiin waa la tusi doonaa sidii node-ka loo create gareeyo qiimaana siin doonaa oo kale value-ga 10 aan qaadan doonaa node-ka wax walba ku store garan karta saadiradeeda kadibna waxaan daawicinaa qiimaha steps-kaas aan mari doonaa python ka ku bilowno marka koowaad waxaan qoraynaa classkaas waxaan u bixinaynaa node classka node marka u bixino constructor method-kiisa waxaan leenahay def kadibna waxaan leenahay init markaan sidaan usoo qorno init waxaan u gudbinaynaa qiimaha value-ga aan soo gudbin doono value-ga sadhowt waxaa lagu keedin doonaa meeshaan waxaan create garaynaynaa data xogtan waxaan ku keedinaynaa value-ga lasoo gudbin doono sidoo kalena waxaan create garaynaynaa self.next oo ah tixraaca node-kan uu keedin doono oo ah node-ka kale marka node cusub la create gareeyo tixraaca node-kii next node tixraaciisa ayaa lagu keedin doonaa qaybtan laakiin markaan hadda waxay noqon doontaa qiimo waxay qaadan doontaa oo nan ah nankaas waxa uu taagan yahay qiimo wax ma tilmaamayso oo wax qiimo ah hadda kuma store gareynayno waa isticmaali doonaa laakiin markaan isticmaalayno hala gaaro marka koowaad node-ka create gareyn doonaa qiimahan qaybtan waxay linked list ka saacidaa isku xirka nodeska hadda node create gareynayna node kale marka aan create gareynayno iyo qaabka ay isugu xireyno waa arki doonaa laakiin marka koowaad waxaa ku bilaabaynaa qiimaheeda inuu yahay nan oo ah wax hadda ay tilmaamayso wax qiimaha ma wadato micnaheedu waa marka sidaas marka aan sameyno waxaan samayn doonaa symbol node-ka cusub ugu horeeya create gareynaynaa node 1 u bixinaynaa node 1 wuxuu la mid yahay leenahay classka u waceena kadibna waxa uu soo gudbinaynaa qiimo 10 ah sidaan marka aad samaysid marka waxaan create gareynaa hadda node-ka koowaad aan create gareynay node 1 sidaas waxaa ku create gareysay hadda node macnaheedu waxa uu yahay just box-kan oo qaybta koowaad ay xog ku jirto qaybtan kalena tixraaca ugu talagalnay laakiin hadda wax ma tilmaami doono waa arki doonaa sidaas ayaa boxiga ku diyaarinay hadda xogtan sidee ku daabici karnaa datada xogta ku jirta oo value-gan u gudbin waa daabici kartaa symbol waxaa dhigi kartaa print isticmaali kartaa python-ka kadibna waxaan isticmaalaynaa f-strings kadibna waxaan leenahay node data node-ka datadiisa waxay la mid tahay kadibna waxaan leenahay node 1 u waceynaa dot ayaa leenahay kadibna waxaan leenahay data daabac xogta kugu jirta sidoo kalena reference-gana waa ogaan kartaa waxaa dhigi kartaa node 1 next qiimihiisa ku store garaysan maxay tahay asagana inaa ogaato daragtid dabcan waxaa daabici kartaa node 1 u waceena kadibna waxaan leenahay next inoo daabac sidaasna waxaa ku arki kartaa xogtiisa hadda daa save garayno oo aan dhahno python-kan aan ran garayno waxaa arkaysaa node data waa 10 node 1 ka datadiisa waa 10 dabcan meeshaan node 1 ya node data aan dhihin dabcan node 1 aan dhahno si aad u fahantid okay so aad save garayno waan ran garayno mar kale waxaa arkaynaa node 1 datadiisa waa 10 node 1 qaybtiisa next waxaa ku store garaysan nan oo hadda wax muxuu ahaa qiimo ah meesha kuma store garaysna node-kan koowaadka marka waa hal node u taagan yahay halkan node u taagan yahay halkan box ayuu u taagan yahay linked list marka aan sameynayno waa isku xiri doonaa boxyaashan ayaa node la dhahaa waa la isku xiri doonaa sidii la isku xirno oo tusi doonaa marka qaybtan koowaadka xogta ku keedinay qaybtan labaadkana waxaa u diyaarinay inaan ku keedin doono tixraaca node-ka kale aan create garan karno nodes badan aan create garan kartaa hadda tusaale ahaan oo kale node 1 kaliya maahan node 2 haddaan rabno inaan create garayno equal to waxaa leenahay wuxuu la mid yahay tusaale ahaan oo kale 20 aan ku keedinaynaa ogow qiimahan aad keedinaysid oo xogtan datada lagu keedinayo meeshaan aad kasoo gudbinaysaa marka aad create garanaysid node-ka objectigiisa
qiimahan wax kasta noqon kara number kaliya maahan ina shardi ah create gareysid linked list xogta ku store gareynaysid number kaliya maahan complex data xog complex ah objects iyo waxyaabo badan aad ku keedin kartaa simple laakiin qiimo waxa oo number uu gudbinayo waxay tahay simple saa u ogaatid inuu fududaado kaliya so node ka saddexaad aad create gareyn kartaa simple node 3 ayaa u bixinayna kadibna waxa leenahay equal to wuxuu la mid yahay waxa u bixinaa node ka kadibna waxa u gudbinaa qiimaha 30 so mid walba hadaa rabtid marka inaad daabacatid waxa simple sameyn kartaa kana soo celinayna so kan waxa ka dhigaynaa node 2 ga kana waxa leenahay node 2 xogtiisa okay just simple node scan daabacina saa u aragtid node 2 ga kana wuxuu noqon doonaa node 3 intana waxaan ugu wacinaa node 3 intana waxa ugu wacinaa node 3 intana waxa ugu wacinaa node 3 so marka aan save gareyno waxa arki doontaa hadaan daabacno saddex node aan la daabici doonaa node 1 node 2 node 3 datadooda 10 20 30 ku store gareysan node 1 node 2 node 3 qaybtiisa next ka mid walbana waxa ku store gareysan saa u jeedid nan oo ah wax qiimo ah next kuma store gareysna next taas waxa ugu talagalnay inaan u diyaarino marka aan isku xireyno node scan sidee la isku xiraa su'aasha marka node scan sidee la isku xiro arki doonaa cashirka xigan ku arki doonaa laakiin aan idin tusiyo qaybtan waa python ka sidaan sameeynay c++ ka simple waa idin soo diyaariba saa waqtigeedu kugu soo gaabiyo simple idan waxa create gareynaysa class syntax ka qaabka c++ loo qoro ayaa raacaysa simple so public ayaan ku bilaabeynaa c++ marka aad sheegtid public private dabcan waa ina muxuu kala sheegtid mararka qaar oo kale way iska fiican tahay so public marka aan dhahno xogtan waa ina public ka dhignaa oo sababtoo ah datadan iyo nextgan waa loo baahanaa marka isku xireyna arki doontaa simple marka labadan waa data memberskooda kan waa object muxuu ahaa kan waa tixraaca kan aan isticmaali doono ugu data type u baahan tahay marka walba inaad sheegtid c++ marka aad joogtid saas daraadeed data type wuxuu noqon doonaa typekiisa waa node kan oo class kan data typekiisa ayuu noqon doonaa constructor ka kiyad garan doonaa meeshii python ka isticmaalina init meesha isticmaalina python ka meeshan waxa isticmaalina constructor ka caadiga ka kiyad garanayna oo aad taqaanay class ka magaciisa isticmaalaysa kadibna qiimo u soo gudbinayna then qiimaha value ka la soo gudbiyo data lagu store garan doonaa c++ ka nan ma isticmaasho meesha aan next waxaan ku store garanayna null pointer null ptr ama null pointer ku store garanayna so no connection yet macnaheedu waxay tahay wax xiriir ah hadda maanan sameeynin so wax xiriir ah kama dhaxeeyo hadda nodes ka create garan doono simple hal node ah create garanay node ka koowaad waa kan xogtiisa waxa ku store garanay 10 type kiisu waa class kan oo pointer ah isticmaalaysa pointers ko ina fahansan tahay simple c++ ka node ka xogtiisa marka daabacno node 1 xogtiisa waxa ku arki kartaa inaan daabici karno waxa leenahay c++ oo simple kadibna waxa leenahay dash o output ka waxaan ka dhignaa output inoogu daabac file kan magaciisa waxa waaye linked list.cpp so inta marka aan dhahno output ka nolo diyaarin doona output hadaan daaba qorno marka simply waxa arkaysaa qiimaha xogtaas ku jirta oo ah node ka datadiisa waxa ku jirta 10 next node kana macnihiisu waxa uu yahay 0 meesha aan nan arki jirtay null pointer kan c++ ka qiimihiisa loo qaato waa 0 saas daraadeed wax connection ah oo nodes ka dhaxeeyo ma jirto isku day inaad create gareysin marka c++ ka nodes badan simple waxa soo celinaysa inta la soo celinaysa waxa kala bedelaysa qiimaha node 2 gan oo kala bixinaysa magacyada iyo qiimaha kala bedelaysa cashirka xiga waxa ku arkaynaa marka nodes kan sidee la isugu xiraa marka linked sida looga dhigaa oo tusaale ahaan oo kale qaabkan oo kale sidee marka aan xogta hadda create gareyno node ka koowaad iyo node ka labaad iyo node ka saddexaad python ka sida ku create gareyna hadda saddex node ah create gareynay oo sidaan ah sidee marka isugu xiri karnaa marka oo ah memory-ga meesha uu ku store gareysan yahay node kan inaan ku store gareyno qaybtan null ka ah oo next ga ku store gareyno hadda null no ah qaybtan sidoo kalena aan ku store gareyno kan meesha memory-ga kaga store gareysan yahay sidaas ay isugu xirxirno oo linked markaas aan ka dhigno cashirka xigan ku arkeena kan meesha ku sameeyna billahi tawfiiq